gudoomiyaha xisbiga muxaafidka kulmiye mudane muuse bixi cabdi markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay eedeymo hogaamiyaasha mucaaridka Soomaaliland ay ku eedeeyeen xukuumadda Soomaaliland inay doonayso waxay ku tilmaameen muddo kordhin waxa uu tilmaamay in warkaasi yahay mid been abuur ah isagoo sheegay in xisbiga muxaafidka kulmiye u diyaar garoobayo doorashada aqalka madaxtooyada Soomaaliland ee 2015 ka qabsoomi doonta guud ahaan deegaanada Soomaaliland isagoo Muuse Bixi wareysi kooban siiyay TV-ga qaranka waxa uu ku yiri waxa weeye in doorashada waqtigeeda lagu qabto dadaal la waan ugu jiraa madaxweynaha waa kii halka laba golaas oo la hadlayay saacad in la kordhiyo diyaar weey mar labaad mar saddexaad waa ku celiyay haddana waa ku celinayna anagu waxaan ku soconaa sida dastuurka lagaashinta markay dhamaadaan in doorashada la qabto wali waa dadaalayna cid loo inay dadaasho weey wixii force mature ah wadana naga baxsanay Ilaahay ku shaqay laakiin anagu qorshe ku taaganahay waa kala waxaan ku sheegayaa waxaan halkan wareed ku saxeexnay in doorashada waqtigeeda la qabto diiwaangelinta waqtigeeda lagu dhameeyo saddexda xisbi qaran commissionka madaxweynaha warqad raacay lifaaqa inay saa ku gasho oo qoladii inaga caawisaa doorashooyinka u diray dhaqaalaha xagga xukuumadda waa ka diyaar wixii qaybtii ka soo aadaysay waanu isla ognahay mucaaridka oraa waanu wada saxnay oo qorshaan ku wada soconaa iyaga iyo qolada naga caawisa doorashooyinka Nairobi joogta iyo commissionka meesha farta laga fiiqayo wali ma naan garan waanu u wada joognaa waxaan talabaana wada ogeynaa ma qaadno markaan kalaasina maraysa cid walaacsan weydiin anagu meel loo fadhawaan anaga mucaaridka iyo commissionka doorashooyinka iyo qolada naga caawisa wax intaan isku raacnay madaxweynaha oo warqadii ka wada halka waxaan kaga laabano gaaran lagu seeray garan maayo ويوه هنوش شيء تلا واحد أنا قاضي وحنا نسوقين أنا قاضي هذا أنا كمية حكومة أنا هاي هالشيء gudoomiyaha xisbiga muxaafidka kulmiye sidoo kale markii ugu horeysay waxa uu si kale u beeniyay wararka sheegaya in magdhow siyaasadeed oo gaaraya 4 milyan oo dollar loo siiyay inuu ka tanaasulo musharaxnimada xisbiga muxaafidka kulmiye ee madaxtinimada sanadka 2015 waxa uu sheegay in warkaasi yahay mid been abuur ah oo dimuqraadiyadda ka soo horjeeda isagoo ka hadlaya gudoomiye Muuse Bixi Cabdi waxa uu yiri halka kelmadda lacag baa la siimaa waa meesha ku jirto qaab darantay xitaa wax afka waan ku habooreen baa jira qadiyadda iyo mas'uuliyadda qaranku wax iib galama wuxuu seelada caynkaas afka caynkaas waa af aad u liita waan ku arkay website qaar waxa qorqoray waxa sababta waxa laga fadhic ku yahay xaraan bay halqaad ka saxba horta waxa waxa laga jawaabaa arin aad u qaab daran ta murashax shirkan kuma jirto murashaxnimadu waqtigeedina ma joogo xeerban ku socona marka waqtiga murashaxnimadu ay taagan tahay dabcan dad badan ayaa xaq u leh inay ku yimaadaan inay sharxaan cid imka arinta sidii leeyahay murashaxnimadu dib ha u taalo in hawlana kala dhamayno ay baan naga joogtaa marka ay timaado waqtiga ayaa murashax xisbi looga dhigaa markaasuna ka hadlayno ayaa murashaxa maxaa la yiri waqtiga la gaari doona laakiin tan iminku waa hadal iska meel hadal aan meesha qabanano gudoomiyaha xisbiga muxaafidka kulmiye sidoo kale waxa uu sheegay in shirweynaha qabsoomi doona Maarch 22keeda xisbiga muxaafidka kulmiye aan lagu soo hadal qaadi doonin musharaxnimada madaxtinimada xisbiga muxaafidka kulmiye balse waxa uu cadeeyay inay jiraan siyaasiyiin tiro badan oo qaba hanka musharaxnimada madaxtinimada xisbiga muxaafidka kulmiye Muuse Bixi Cabdi oo ka hadlaya waxa uu yiri ومحل أورانو الحزب وحوسه قال إنه مدح نقضيه حقنا ويوري حزب اللي يمد حزب واحد لو يمد ده إنه ترتاح مدح لو نقض مركا قف مركو حزب سوق رايد ما وحوسه قال يبقى وانو كورس مدح نمكو قالوا مركا ضد بضبه هنكاره ضد بدنا وشرح دونا لكن ده حزب وحوليه شحير يهب وحكو حليه قف ما صبح دونا وضد بدنا ترتاح دونا ضد بدنا حزب أو قلبه حزب وحوليه دول وينو مذكر هو حلقة وضع قبان كرا دنعيا بضن وانو سيما دور مركان حل كيدا نكاري دونا قف أمان مرشح كري دونا أنا سؤال رأسنا توضع يا أحمد يا هذا الكون هو عادي حمزة علي بلبول أول عبد كاهين تيفيق قناة الصومال حارون تحسبك محافظ كلمية